Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkan waa Awaaj Tech Review oo uga barateen inay idiin soo gudbiso qalab walba oo cusub oo tiknoolajiyada la xiriiro iyo sarfeyska adeegyada tiknoolajiyada la xiriiro. Halkan maanta waxaan ku fiirineynaa sida aad u daleedi karta message oo WhatsApp-ka aad u dirtay qof inaad ku daleedi karto. WhatsApp-ka waxaa ogeen waagii hore 12 November sanadkii tagay markii uu bilaabayay in uu na siiyo 7 daqiiqo in lagu daleedi karo message-ka. Hadeetaan uu sii dheereeyay waqtiga wuxuu ka dhigay 1 saac. Marka adiga ma doonaysid halkaas saac oo dhan inuu fariintaas ee qofkaas ee agtaala ma doonaysid. Sideeha marka kula gudboon inaad sameyso. Kow waxaa sameyneynaa Wi-Fi-ga damineyna. Wi-Fi-ga hadeetaan wuu ii dansan yahay. Wi-Fi-ga markaa damino. Marka labaad waxaa imaaneynaa settingska. Settingska markaa imaano settingska maxaa ka rabnaa inaa ka bedelno date-ka iyo maxaa la dhahaa iyo saacadda. Hadeetaan intaan settingska aadin waxaa aadeynaa kow message-ka rabno inaan soo daleedno. Message-ka rabno inaan soo daleedno waa kan tusaale ahaan. Waxaa ka soo qaadaneynaa tusaale ahaan markaa kan dooranno delete aad dhehno delete for me uu leeyahay soo mujeedaan. Laakiinse message-ka xilliga la diray waa 16 July 2019. Saacadda ay tahay 3 saac habeenimo 12 daqiiqo. Waa marka date-keena waa inaa geeno 16 July waa inaa geeno saacaddana waa inaa geeno 3 saac 12 daqiiqo. Marka settingska tageena date and time automatic marabo inta 16 July igaga dhig. Date-keygana waxaad igaga dhigtaa 3 saac iyo 12 daqiiqo tusaale ahaan. Markaa saas oo kale igaga dhigto. Talaabada xigta waa inaad hubsato geeskan aad taabato WhatsApp-ka kuugu jiro aad saas u remove gareyso. Waa garteenaa filaa. WhatsApp-ka markaa remove gareyso hadda iyo kow ayaa soo galaysaa WhatsApp-kaaga. Waxaa galeynaa kan waa kana message-ka rabno inaad daleedno. Hadeetaan waa ujeedaan soo ma aha. Wuxuu noo soo qabtay delete for everyone uu noo soo qabanayaa. Waa hadaa ku celino waxaa waaye weli date-keeni waxaa waaye 16 July waaye waqtiga la diray 3 saac iyo habeenimo. Markaa ku dhufano delete for everyone kaasaa ku dhufaneynaa you deleted this message ay soo baxayso. Waad mahadsan tahay. Hadaa ka faa'iideyna commentiga hoos noogu soo xus. Haddii aadan ka faa'iidinna waxaa dhici karto taleefanada qaar inuusan ku shaqeynin. Kaaga noocuu yahay noo soo sheeg anakan insha Allah tacaala waa kula wadaagi doonaa xogtiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.